waalidku waxa uu dareemaa marka uu howlgab noqdo carruurtiisuna ay koraan oo ay ka kala guursadaan kelinimo. waxa uu dareemaa in howl waliba uu qabanayo aanay qiimo lahayn, arrintaasi oo si dhab ah u saameynaysa nafsad ahaantiisa xilligaasi oo kale. waalidku wuxuu ubadkiisa uga baahan yahay inay garab istaagaan, sidaa darteed waa inaan ku dhaqannaa talooyinka qaar si waalidka aan u garab istaagno. waa sida uu qoray website-ka Daily Caring. talooyinka ku aadan habka loo daryeelo waalidka marka ay shaqada ka fariistaan oo ay howlgabka noqdaan. dadka waaweyn waxaa dhici karta inay hurdayari soo wajahdo, arrintaasi oo mashaakil badan oo dhanka caafimaadka ah uu ka dhalan karo. sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inaad waalidka siiso talooyinka qaar, sida in aad jadwal hurdo u samayso ama aad kula taliso inay kafeyga cabin si aanay hurdayari u dareemin. carruurta waxaa laga rabaa inay si joogto ah usoo booqdaan waalidkood iyaga oo maalmaha kala qaybinaya si ay u madadaaliyaan oo ay uguna dhiirigeliyaan inay jimicsi sameeyaan, haba noqdo mid aad isaga yar, oo ay u weheliyaan si aanay kelinimo u dareemin waalidku. waxaa waajib ah in waalidku uu ka qayb noqdo munaasabadaha bulshada ay isugu yimaadaan ee kala duwan, sida xafladaha guurka ama xubnaha qoysku ay isku raacaan safar dalxiis ah ama goobaha loo madadaalada tago ay isugu timaado bulshada. waa in waalidka lagu dhiirigeliyaa inuu raaco habraaca cuntada caafimaadka leh oo ay badsadaan cunista cuntada dabiiciga ah iyo khudradda oo lagama maarmaan u ah nolosha. sidoo kale halkan waxaa lagula talinayaa in carruurta ay waalidkooda u muujiyaan kalgacalka ay u hayaan, sida inay hadiyado usoo iibiyaan si joogto ah, ayna usoo booqdaan oo ay u daryeelaan, arrintaasi oo qayb ka qaadanaysa caafimaadkooda iyo fayoobi qabka waalidka. dalmar cabduqaadir, barnaamijka subax wanaagsan, goobjoog TV.